daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij ku saabsan waxbarashada oo in si gaar ah ugu eegi doona marxaladaha la soo darsa ardayda shaqadoonka ah ee soo afmara waxbarashadooda jaamacadda. waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan barwaaqo gaarne sanad kasta dhamaadkiisa waxaa jaamacadaha dalka ka qalin jabiya kumanaan arday oo dhammaysay waxbarashada heerka koowaad iyo heerka labaad ee digriiga iyo maasterta. kumanaanka aqoon-yahan oo sanadba sanadka ka dambeeya ka soo baxa in ka badan 30 jaamacadood oo ku yaala dalka gudihiisa ayaa isugu yimaada fagaaraha shaqo la'aanta oo ah caqabada koowaad ee haysata dhalinta Soomaaliland. waxaana mararka qaarkood dhacda in kuwa kale oo ka soo baxay jaamacado ka baxsan dalka ay iyana ku soo biiraan isla fagaarahaasi shaqo la'aanta. marka laga reebo tiro kooban oo ka mid ah aqoon-yahankaasi oo shaqooyin aan qaarkood ku qanacsanayn ka hela goobaha dawladda iyo ganacsatada, inta kale dhammaantood dhalintaasi waxay noqdaan kuwa ay la daristay shaqo la'aantu waqtigooduna kaga lumo meelo aan munaasib ku ahayn, sida wiilasha oo u bata meelaha fadhi ku dirarka ah, balwadaha iyo hablaha aqoonta u saaxiibka ah oo markay shaqo waayaan iska noqda guri joog ama ay dantu ku khasabto inay guursadaan. waxaa intaasi dheer in dhalinta ka soo baxday jaamacadaha ee shaqada waayay ay qaarkood u badheeraan naftoodana ugu biimeeyaan badweynta halista badan iyagoo higsanaya wadamo shisheeye si ay u helaan shaqo iyo nolol ka fiican tan maanta ay ku jiraan. haddaba warbixinteena daawadayaal oo aynu si gaar ah diiradda ugu saaraynay shaqo la'aanta soo wajahda kumanaanka arday ee sanad walba ka soo baxa jaamacadaha dalka ayaa waxaa isweydiin mudan maxay yihiin caqabadaha hortaagan dhalinta aqoon-yahanka ah ee sanad walba ka soo baxaya jaamacadaha, sideese looga baxaya caqabadahaas sababay shaqo la'aanta ragaadisay dhalinta Soomaaliland si ay u helaan fursado shaqo. su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaanu hordhignay qaar ka mid ah ardaydii sanadadii u dambeeyay ka qalin jabiyay jaamacadaha dalka iyo sidoo kale qaar ka mid ah aqoon-yahanka kale ee ku nool wadanka. horta anigu ardaydii sanadka qalin jabisay waan ka mid ahay, welina dee shaqadii waan baarayaa, waan ku jiraa baaritaankeedii, laakiin waxaa dhalinyarada ka hortaagan markaan anigu fikrad ahaan 3 sababood. saddexdaas sababood waxaa ka mid ah inaan horta marka hore markuu shaqadii raadiyo aan shaqadiisii loo eegin shahaado ee loo eego weji garad ama hab qabiilaysan. number 2 waxaa sababaya in qofkii uu shaqo waayo tiradan faraha badan lee soo baxaysa ayaa kow ka ah. number 2 waxaa ka mid noqon kara oo qofkii shaqo u diidi kara corruptionka iyo musuqmaasuqa baahsan ee wadankeena ka jira. sidaynu odeegsoonahay hadda maalintii duweyd waxa la ogaaday oo hay'adda shaqaaluhu ogaatay in ka badan 1000 qof oo meel alla iyo meel ay ka shaqeeyaan aan la garanayn haddana mushaharkooda sanad walba la qaadan jiray. dawladdu hadday hadda gacanta ku soo celiso public service-ka waxaan u jeedaa yani waxyaabaha bulshada loogu adeega bulshada oo dhan, utility-ga sida laydhkii, biyihii iyo waxyaabaha kale ee faraha badan aynan halkan kusoo koobi karin ay dawladdu xaq u leedahay inay bulshada iyadu u fuliso maanta ku jira gacanta dadka gaarka ah. waxyaabaha hadday soo celiso dawladdu waxay ku abuuri kartaa shaqooyin aad u tiro badan. kolay sida ardayda kale wax baratayba carqalad baa wada haysata baan odhan karaa anigu. carqaladda haysata waxa weeyaan dawladdii qorshe la'aan maxay hayday halkaas dee ka taagan oo aan jihaynin ardaygii maanta soo baxaya ee aqoontu soo bartay inuu ku shaqo tago aan maxay hayday wax qorshe cad aanu haynin iyo dhammaan xarumaha dawladda iyo meelaha gaarka loo leeyahayba iyadoo ay dad badan oo awooyaasheen leeg ay fadhiyaan halkaas waxa ka maqan jaaniskii ardaygan wax soo bartay aqoonta leh maxay hayday intaas sano ku soo tabcay uu kaga faa'iideysan lahaa inuu ka hortaagan yahay qofka ritaarka ama 70 ka mid 60 ka gaadhay halkuu ka fadhiisan lahaa isagu ardaygaas uu ka hortaagay maxay hayday shaqadii uu ka hortaagay. maxay yihiin caqabadaha hortaagan dhalinta aqoon-yahanka ka soo baxay jaamacadaha inay helaan shaqo?
xabiibigood mahadsan tahay horta taa waxaan odhan lahaa kow waxaan iswaafaqsanayn takhasusaadka jaamacadu bixinayaan ee jaamacadaha lagu baranayo iyo suuqa camalka furaska yaallay taa waan odhan karaa qodob labaad baan odhan karaa oo fursad u noqon karaa tii aan aaminsanahay inuu ka qayb qaato in shaqo aanay helin dhallinyaradaas marka jaamacada ka bixin baa jiro jaamacadaheenni waxay noqdeen waxyaabahan inta badan aqoontan tiiriga ahee kuwa bixinaya waxaa ka maqan aqoonta qayb kaloo muhiim oo marka waxbarashada la jooga aada loo tixgeliyo kana furas badan waxbarashadan kale nidaamiga jaamacadaha laga barto waxa weeye aqoontan la yidhahda xirafka iyo mahaaraadka dadka in xirfado waxay ku shaqaystaan oo maalinta ay takharujaan ee meeshan ka baxaan inay farsamo gacan ay ku shaqaystaan la baro arrintaa shaqo la-aantu haddii aan la jahaynin dadkaasan wax la barin aan dadkaa shaqooyin iyo furas loo abuurin waxyaaba keedi waxaa ka mid a dadkan cuquusha leh ama dadka la asxaab amwaal hijrat alcuquul waxa la nagu dhacay dadkeennan wax bartay ee aqoonta leh ee maskaxdoodu dalkeenu u baahan yahay in la maalo loo baahna inay dalka ka tagaan baa dhici karto waa tahriibahan iyo waxan inay sii kordhaan waxaa dhici karta dadkan xoolaha leh ina maal gashan la markay arkaan dadkeena aqoontoodii iyo heerkoodii hooseeyo dadkii aan laga faa'iidin marka dadka tagaan in dadkii xoolaha lahaa wax maal gashan lahayn inaga tagaan oo inoo iman waayeen maxaa xal noqon kara si looga gudbo caqabadaha aad soo sheegtay dhalintu ka soo baxay jaamacadaha dalkuna ay helaan fursado shaqo waxaan aada u soo jeedin lahaa wax ka qaban lahaa arrinta shaqo la-aantoo kale in dawladdu ay samayso waabay leedahay diiwaanka sekadoo kalea jira sanduuq sekada lagu ururiyaa jira sanduuqa in mashaariic dhallinyarada iyo dadka shaqo la-aantu hayso laga maalgeliyo oo laga taageero oo wixii wax loogu qaban karayo wax loogaga qabto oo mashaariic ay ka shaqeeyaan laga abuuro hadday doonaanba mashaariic dawladdu leedahay ha noqoto maxay yihiin caqabadaha hortaagan in dhalinta aqoon-yahanka ka soo baxay jaamacadaha dalku ay shaqo helaan su-aasha ka jawaabo waxaan u sababaynayaa laba qodob ayaa sabab u ah in ay dhallinyaradii jaamacadaha ka soo baxayay ee aqoon bartay inay shaqo waayaan ama aqoontoodii meel ay la qabtaan ay waayaan qodobka koowaad ee aan sababta ugu dhigayaa waxa weeye iyadoo ay kala badan yihiin dadka soo baxaya ee wax baranaya iyo suuqu wuxuu u baahan yahay aada iyo aada u kala badan yihiin qodob kalea jiro runtii dadku ay aada uga ilduufaan oo ah shaqadan qofkuu doonaya uu leeyahay waan soo bartay mana aha wax laysugu indha buuxiyo ee qofkani markuu doonaya cid u shaqaysa ciddaa u shaqaynaysaa waa inay ka adag tahay shaqadii aqoonteedii waa inay leedahay marka waxaan leeyahay runtii oo aan ku dhiiranayaa khalkhal aada iyo aada u weyn baa wuxuu ka jiraa goobaha waxbarashada marka mushkiladdu waxa weeye dadkii aqoontii la siinayayna aqoon buuran ma aha marka hore ay gelayaanna cid wax u sheegta oo yidhaahda waxaasaa suuq leh waxaasina suuq ma laha waxa weeyaan taana iska ilaali ayaan jirin marka arrimahaasoo isbiirsaday ayaa waxay keeneen in la helo dad fara badan aada iyo aada u fara badan oo shahaadooyin sita oo isu yaqaana ama lagu yidhi aqoon baad leedahay fakaltigaasaad ka qalin jabisay inuu cidla ku soo dhaco uu shaqo la-aan ay ku dhacdo arrimaha aynu sheegnay daraaddood waxaan leeyahay xalku wuxuu yahay kow in waxbarashadii xaqiiqo laga dhigo oo jaamacadihii dugsiya sare hoos loogu noqdo la xaliyo iyo in dowladdu ay soo gacan geliso ay dejiso bareenka ah suuqu muxuu u baahan yahay guud ahaan in la dareemo maanta in la yidhaahdo ardaydii way soo baxaysaa dadkii aqoon-yahanka ah way soo baxayaan jaamiciintii way soo baxayaan laakiin shaqo ma helayaan waa number one horta dee dhaqaala xumada dalka guud ahaan ka jirta qayb bay ka tahay oo dalka waxa weeyaan dee economically maartay sidii loo baahnaa maaha taasi waa caqabad qodobka kalena waxa weeyaan taana waxaa iyada lafteeda lamaan in dalku dee aanu ahayn dal la aqoonsan yahay marka dalka haddii la aqoonsan yahay wuxuu helayaa mataqaanaa dee maarta investment caalamiya maalgelimo caalamiya oo kala duwan buu helayaa waxaa dhacaysa in dowladdu ay qaadan karto shaqaalo fara badan sidee ayay carqaladaha hortaagan uga gudbi karaan ama ay fursado shaqo u heli karaan dhalintaasi aqoon-yahanka ah ma horta number one dee fursadaha shaqo waxaa lagu heli karayaa shaqada la doonaya laftirkeeda oo dadka dee in mataqaanaa ay dee ku kala duwan yihiin qof kastaba hadduu doono inuu xafiis ka shaqeeyo ama shirkad isgaarsiineed u shaqeeyo ee lama wada helayo marka xaggaa in qofku shaqo samaysto oo isagu shaqada abuuro oo uu alifo shaqada iyada laftirkeedu qayb bay ka tahay waxa weeye taasna way nagu yar tahay iyada oo ay qayb ka tahay uun dhaqaalaha aynu ka hadlayno wax kaloo qayb ka akhlaaqdii iyo ammaankii waxaad arkaysaa kambaniyo badan raadinaya dad u shaqeeya oo laaba oo qofku noqdo qof mataqaanaa dee
aqoonta hagto dee ammaana oo mataqaanaa ilaalin karaya xogta iyo dhaqaalaha iyo mataqaanaa waxa la wixii dee loo dhiibay ammaanadeeda waxyaabaha kale oo ay la kulmaan waxaa ka mid a dhalinyarada marka ay jaamacadaha ka soo baxaan dhaqaale la-aan dalkeena waynu ogsoonahay jamhuuriyadda somalilan dhaqaalihiisu aada buu u hooseeya ardayda soo baxaysaa sanad walbaba ay jaamacadaha kasoo qalin jebinaya waa kumanaan qof xukuumadda jamhuuriyadda somalilan wax qorshe ah oo ay u samaysay ardayda faraha badan leh ee dalkan asadka oo ah ee loo baahnaa in qorshe loo sameeyo uma sameeyaan dhalinyarada inta badan kuma dhiiradaan mana helaan kab ay ku samaystaan shaqo abuur ganacsi waa meelaha ugu waaweyn oo ay kala kulmaan caqabadaha mana helaan cid ku taageerta oo garab istaagta oo ku dhalisa in ay shaqo abuur samaystaan oo ah ganacsi dhalinyarada jamhuuriyadda somalilan ee jaamacadaha ka soo baxay dhammaantood waxa ay doonayaan in ay xafiisyo fadhiistaan oo ay mushahar wanaagsan qaataan hase ahaatee waxay ku noqotaa taasi caqabad marka loo eego dalkan jamhuuriyadda somalilan dhaqaalihiisa iyo heerka uu caalamka ka maray ugu dambeyntii muxuu noqonayaa xalka lagaga gudbi karaa caqabadahaasi si ay dhalinyaradu u helaan fursado shaqo waxaa taasi lagaga bixi karaa waxay tahay jaamacadaha dalka oo iyagu qualitigooda lambar 1 la eego waxa ay u dhigayaan ardayda ka soo baxaysa jaamacadaha iyadana manaahijta iyadana aad iyo aad loo eego la sameeyo qorshe sanad walbaba ardayda ka soo qalin jebinaysa jaamacadaha in la sii odoroso tiro ahaan inta ay noqonayaan iyo qorshe ahaan waxa la doonaya in hadhowdii lagu hawlgeliyo oo ah in loo sameeyo mashaariic horumareed ama shaqo abuur ama shaqo qaran oo ay dowladda u diyaar garayso ayaan kula talin lahaa in arrimaha dhalinyarada wax lagaga qaban karo bulsho waxay hagaagtaa hilintoosan qaata ayageeda qanata dunida heerka gaadha markay qanad aqoonlo caqli loo qiibeeyo hablo garasha dheero tacliimigii korkacaya halyeeyadii adkaysto dhaxanta badaniyo habeenkii mirkacayo dhab u soo qalkamayo qalin jebinta helayo ambalyaynoo leenahay haddaba maxay dowladda somalilan u qorshaysay dhalintaasi aqoon-yahanka ah ee sanad walba ka soo baxaya jaamacadaha si looga baxo ama loo yareeyo shaqola'aanta wasiirka shaqogelinta iyo arrimaha qoyska marwahinda jaamac oo horaantii bishan oktoobar kaga qayb gashay xaflad ay ka qalin jebinayeen arday jaamacadeed magaalada burco ayaa arrintaasi ka hadlaysa waxaan idin sheegayaa maanta inay tahay fursaddii ugu qiimaha badnayd ee ay qalin jebiyaan runtii haddii idamka ilaahay ka dhigo oo mawdku inaga oggolaado eeba inagu simo waxa weeye waxa uu maanta qorsheeyey madaxweynaha hoggaanka maanta talada dalka haya mudane muuse biixi cabdi sanad walba in la qabto wax la yidhaahdo shaqo qaran ama national service kaas oo 1500 oo qof sanadkii walba lagu shaqaalayn doono lagana qaadan doono ardayda digriiga jaamacadaha qaranka Soomaaliland leeyahay qaatay ee ka baxay inkastoo haddeer dalka Soomaaliland ay ka jirto xukuumad cusub oo wali aan sanad jirsan haddana mas'uuliyiinta dawladdu ma aha kuwa moogsan shaqo la'aanta haysata dhalinta ka soo baxda jaamacadaha waxaana madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu aaminsan yahay in kor loo qaado wax soo saarka dalka oo shaqo abuur badan laga helayo isagoo madaxweynuhu kula taliya dhalintaasi aqoon-yahanka ah ee ka soo baxda jaamacaduhu inay la yimaadaan fikrado cusub dawladda iyo ganacsataduna ay garab istaagto maanta dalka horumar ay leedahay caawinta siiya hana la gargaaro anigu waxaan rabaa ereyga inuu ka baxno maxaynu qabsanayno dalalka lagu ammaan nolosha ugu wanaagsan ee aynu caawinta dalka kamida Suudaan baa kamida Denmark baa kamida waxa laga yaabaa sanadkii cadceedda wada saddex bilood ahaa inaguna aynu toobad hadlo sagaal bay ku dhasheen sagaal bay ku dhalaan tacliinta barteen bay baranay tacliintii bay baranay dalka ka wanaagsan bay leedahay oo la beeri karo oo la qodan karo oo macdan laga soo saari karo
oo wixii ilaahay siiya xoolaa lagu dhaqi karo oo wax walba loogu dhaqo waa ognahay qof waliba oo 20 jira oo 30 jira wuxuu doonayaa inuu shaqo helo inuu qoys dhisto inuu guri dhisto inuu carruurta mustaqbal helo taa waxaa lagu helayaa markaynu guddiga shaqada wada qabano dowladda iyo ragga businesska lacagta ayana waxaa laga rabaa inaad ka hesho kaalmada aad u baahnay ee markaad firka gabta aad ku dhaqaajin lahayd taana dowladda iyo businesska way ka wada hadleen waana ka diyaar inay dhalinyarada ku gacan qabtaan fikradaha ay keenaan hababkii iyo shuruucdiina waa la wada walow uusan madaxweynaha talada haya ee Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aanu ka wada qayb galin xafladaha qalinjabinada ah ee ardaydu labadii bilood ee ugu dambeeyay si xiriir uga dhacayay meelo kala duwan oo ka mid ah dalka haddana mas'uuliyiinta kale ee ka socota dawladda xisbiyada mucaaradka iyo aqoon-yahanada kale ee lagu casuumay munaasabadahaasi loo qabtay ardayda ayaa ku kala aragti duwan qorshihii iyo qaabkii ay shaqo u heli lahaayeen dhalinta ka soo baxday jaamacaduhu qolqoljoogka noqonina jaamacadda burco waad ka soo baxdeen laakiin sadde burcawn inaad fadhidaan oo shaqo ka doontaan qasab maaha waddanka dhexdiisa koona ilaa koona halkii shaqo laga heli karaba tag weliba waddanka haddaad sii dhaafi karto waddamada jaarkaa tag haddaad sii dhaafi karto meel kale u shaqo doono qolqoljoognimadu hoos bay kuu dhigaysaa waxa weeye meel kasta oo ay nolosha kula gasho weliba intaa da'diinnu u dhaxayso 20 jir ilaa 30 jir khataro badan qaado oo horumar samee oo meelo badan u shaqo tag oo wax kasta isku day 155 arday halkan maanta ka baxaya iyo guud ahaanba ardayda ka qalin jabinaysa Soomaaliland dalkan ay u qalin jabinayaan uu ku filan yahay wuuna u diyaarin karaa inuu iyaga iyo inta ka badan runtii uu ku soo dhaweeyo shaqooyin iyo fursado iyo runtii dhiirigelinba waddanka waa loo soo shaqo tagaa ilaa qaldawadaha isku dara nuurada iyo sibirka ayaa qaar Bangladesh ka yimaada laakiin waxa weeye waa loo soo tababaray wax ka soo tababaray bale inagu dhextooda tagaasa waxaan ku guul dareysanay inaynu iskuul farsamo aan yeelano dhaxanta badaniyo habeenkii mirkacayo dhabu soo qalkamayo qalinjibinta kelayo hambalyeenu leenahay si kastaba xaalku ha ahaadee sanad kasta kumanaan arday ayaa ka soo qalin jabiya jaamacadaha ku yaala dalka gudihiisa kuwaas oo hawl adag waqti iyo hayaan dheergeliya waxbarashadooda iyadoo quud iyo qarashna ay la barbar taagnaayeen waalidiintooda iyo eheladoodu si ay u horumariyaan nafahooda iyo dalkooda balse marka ay ka soo baxaan jaamacadaha dalka waxay la kulmaan qorshe kaasi ka duwan waxaana soo food saarta shaqo la'aan baahsan taasi oo warwar ku abuurta noloshooda isla markaana culays damba saarta waalidkood iyo ciddii ku soo tabacday mana jiro qorshe dawladeed oo ku wajahan in fursado shaqo loo abuuro dadkaasi ka soo baxaya sanad kasta jaamacadaha ku yaala dalka daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabanaynaa barnaamijkeena waxbarashada oo aan si gaar ah diiradda ugu saaraynay ardayda sanad kasta ka soo qalin jabisa jaamacadaha dalka waxaana barnaamijka idila socodsiinayay anigoo ah Xabiib Ciga Xasan tan iyo kulanti dambe inta barnaamijkan mid lamada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amaanillah waxbartaan barwaaqo gaarne